maanta waxaan ka hadlaynaa audio dakin qaybtiisa labaad ee dhanka DaVinci Resolve. marka ugu horeeya codka ayaan isla dhageysanayna aad ay u kala dheeriyeen. marka DaVinci codkeeda ama audio dakinka laga sameeynaa qaybtan Firelight lahay ayaa la tagaa. Firelight ayaa tagaysaa, videogaaga ayaa active gareynaysaa oo adiga codkaaga la socdo. qaybtan ee dynamic imaane oo audio 1 ka ah, audio 2 na music way. kana laba mar click siinayna, laakiin adiga screenshot hada ka qaadan kartaa markaan doorto. sidan ayuu ku soo baxayaa. marka waxa laga rabaa sendigan ina active gareyso oo compressorkan active gareyso, expanderkan active gareyso. kaliya intaas waa limiterkan waa active gareynay. waxaan screenshot ka qaado kabacdi marka intaas sameysa audio 2 ayaa laba mar click siinaysaa ila dhageysta. marka ku soo dhawaada Texon music aad u dhamo. musican waxa laga maamulaa marka cod inuu oo music automatic u dheeraado hadii aad doonaysid. qaybtan ayaa laga controlaa. meeshan hadda waxaan geenaynaa 30 iyo labo. qaybtan adiga 4 da ka dhigtid oo si 3 amal meeshan ka dhiganaya. qaybtan hoosana 3 ayaa ka dhiganaysaa. qaybtan si oo fit fiican u noqdo labadan kalena kunkuna ka dhiganaysaa. way fit ku sameeyna qaybtan release kan si codkaaga fit ahaan music isku socdan ila fiir. marka Wallaahi wa barakaatu ku soo dhawaada Texon maanta waxaan rabaa inaad inta 3 shay ugu muhiimsan hadda isla music uu kugu dheeryahay mar walba waxa imaanay part 2 imaanay audio qaybta labaad audio 2 ga imaanay oo dakinka ah oo listen kana ku ah. qaybta hore sendia soo dhad qaybta labaadna oo music listen inaad hada u baahan tahay. kabacdi meeshan 30 iyo labadaas ayaa badinaysaa. 34 ayaan ka dhigayaa hadda. haddii aad lahayd kaamirada iyo video editingka marka aad u jeedaan videogan haddii aad ka hesheen la sii wadaaga asxaabta. aad ayaad u mahadsantihiin.